السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرق دنبه أو حيصالح دمان ومدى الصوماليات ميلكستو الدنيا الدافية كتشوكتان ورماتا وحان أركي قورا إسلايا هاي أضاقي فرولاها من خطبات دي سينيغيستي خطبات كلا كدن بيسي أو تشيديي حلبان تشيسو ساسا أسكو داوضي نكليا فرولة أو دستورك أضاقي على يركي دستوركو آد يا آد دستورك بو قال يها ما أولوغو وابر كدا هبينكي أركا دستورك هذا يساق يساتر تشور لي هايين سيفي عمان ودقيستي هذا الذي يسي حوغا إن ميلا قبيل لغم بقى عدبي دي خطبات دي واحد دقيستي المهمة كانت كاكاشي دي ميلا قبيل كم بقى عدبي ويري أرم الريحان لحدي كاكاشي طولكو دي يعني أدو وحيانا نوعاسة مكان قيميي واحد الله يسعود دي كليب ودوبي حلبان تشيسو فرولا وجوابي يا ابي لكن فرولا وجوابي انا وقرت رجع واكرسي يا باشا هذا الله ما دافو تشيسو ان وحلبان صوماليات ان وليبا اسك نباد يا نولو ودنahay oo isku xisbi ka waa tirsanahay ان xillibaanku foroolo uma jawaabin ee qabiil la yiraahdo ma jeerteen buu jawaabay hadaladiisii dur xulka ahaa markaan fiirshay بس أفلوها يا باي تشيسو مدبان لي تشيسو مدبان لي وعن لي حلبان صوماليات باتهاي دولة نمدا يسيستم كا حلباني دادك هنعسين أركتي دا فرولة قوانا وشخص السياسية عاد حلبان وداتهين أركتي الزكاة اللي لكن أدوك الديغان دل وحاو ماذا هنبين أفلقا دقيحن هير واحد قادي أتري هذه حلقي محاكمتا ماشي اللي يراهدو قروا جنبوين قد قزام على حرت يقال كعيان طول حيس حاشا لله أنا عندي كريم وحيالها قبيل نساو عاي كريم أنا نحل بان أحين لكن ببرك فيك أيوب اللي يراهدو عن دلاي أنا باو حيالها نوع عاص سوقورنا يراهدو بل دور كلمة عادي كلها هي فرماتشو ومدحويني دالك annagaa taageersan foroolo la reer ah iyo qaar kaloo badan jeesowow madaxweynaha waa farmaajo dadka adigu hanacsiin waxtar baad is leedahay madaxweynaha dadka adigu hanacsiin waxa ma tari kadib miskiin dhalay baa tahay haddii alla ku roo yahay dawaashi laga soo doortay oo aad qabiil ahaanta uga soo baxday baadan habeen salaad casar ku tukan karin iyo maalin midna dadka dawladnimada hanacsiin kelmadu waxaan ka iri maxaakiimtii xilligaan ahayn waa ogahay inaad jifi yar oo magaceedii laawaye aad ka tahay qoladan beesha hawiye inaad jifi yar oo sadaqadu ku baxdo aad ka tahay maxaakiimtina waxaa laga yaabaa waxay u badnaayeenba beelweynta hawiye u badnaayeen waxaa laga yaabaa marka inaad maxaakimka ku celinayso garowa gaboyn laga xirtay waxaan u maleynayaa systemkii maxaakimta iyo xilliga maqaciyaasii aad ahayd ma aqaane maxaakimtu nimankii bandiirada yeed bay ahaayeen asalkoodina casmaray ku dambeeyeen xabadda maxaakim federal iyo puntlandba bandiirada hal maalin ka bilaabatay 7 beri isma haysan maalin dambe waxay taagnaayeen casmara meesha eletriyaanka wateen anaguna Etoobiyaan wadanay waxaan u maleynayaa si fiican baad uga warhaysa maxaakiimtu waxay af ku soo qaateen gambooyinkana u xireen reerka aad ka dhalatay ahaayeen reerka aad ka dhalatay gaal jecel weeyaa lagu yiri gaal jecel ruma ku sheegayaa dawladnimada Soomaaliya dadka hanacsiin systemka iyo qofnimada shakhsi farmaajo la yiraahday annaga taageersan garow laga taageersan yahay shakhsi waa kala aragti duwanaan karaan foroolo khudbadiisa markaan dhageystay farmaajo buu dhaliilayay oo maanta waxaan islahaa foroolo dul istaag oo buuga dastuurka ka dhig baas laha laakiin foroolo waxa iga soo horbaxayba mid aan foroolo u jawaabayne aniga ay caayaya ilaa jeeso markaad garow caayaysid oo galka caayaysid adoo gambaan idin xiray iyo xaga ka dhacaad ku haysay de foroolo ma socon ana ay socotay ana ay caayaysid foroolo waa shakhsi garow waa artay hal guri buu ku leeyahay ka dagay
maxaa deegaan iyo puntland iyo midda kale meesha aad leedahay puntland baa la weeraraya war adeer puntland faataxa kuma taagna faataxo kuma taagna intaana soo gaadheenba haddii bon dhalay oo gaal jecla ugu dhaagan kara puntland war anigu munaafiq maahay runtaan kuu sheegayaa si fiican hadalkayga kuu galo hadalkaygu ha ku galo haddaad doqon ahayn waa ilaab garanay deegaan iyo dal baa lagaa soo doortay foroolaha sheegaysa deegaan iyo dal baa lagaa soo doortay garow wuu laakiin ka khudbaynaya waa meesha u dhashay buu ka khudbaynaya laga doortay buu ka khudbaynaya si jiraad ka qabanaya nabad buu ku haystaa iyo wuxuu ku haystaa bahalkii maxaa adigu ku haysataa adiga xaafadda ay tegi karin war haddaan dowlad taageersanaho nabad iyo nolol nahay dee ma hayaan runta isu sheegi weyno annagu inaan runta isu sheegi weyno ma aha farmaajona waa og yahay ka wax tari kara ama dili kara ama noolayn kara waa ogi maanta faroole iyo adiga haddii lasdhinac dhiga sooma dhinac dhigi karnaale markii lasdhinac dhigo dee kugu bedelan mayo faroolahaas oo aadaya mucaarad ku ah sababtoo ah waa nin dili karo dayn kara wey aduu maxaa tari kardhaa maxaa ma tari kardhi been ha u sheegin dadka been ha u sheegin islaamaha iyo carruurta been loo sheegi dowladnimada farmaajo qabiil ka soo horjeedaa ma jiro madaxweyne farmaajo qabiil kama soo horjeedo shaksiyaad waa isdhalili karaa laakiin ma aha inaad tidhaahid af qabiil adoo ku hadlaya oo haddii alla ku wareegay qarararac leh oo qabiil yar ku hadlaya ka dhalatay inaad dad dhan oo deegaan iyo dal leh inaa af lagaadisid khalad bay kugu tahay mana aha dhaqanka gobta maaha dhaqanka gobta ma aha xildhibaan jelsow waxaan leeyahay dib isugu laabo wax badan baan xeerinayaa sida hadalladu kagala dhacayeen ma doonaya in hadalladu igala dhacaan ma doonayo in hadalladu igala dhacaan dowladda annagaa taageersan shacabka reer puntland oo dhan baa taageersan laakiin sawirka foosha xun ee aad bixinaysid oo ah puntland ba aad ka soo qaadaysid meel macnaha iyadoo dhan ba meel macnaha aada looga necbiya dowladnimada aad ka soo qaadaysa laakiin ma annagaa puntland intaan kusoo leekaanay kusoo dhalnay wax kusoo baranay annagaa soomaalinimada jecel annagaa farmaajaha sheegaysa jecel annagaa dowladnimada jecel annagaa ciidamada jecel annagaa qarannimada jecel qaranka haddaanu taageerna wax tari karna haddaanu mucaaradna wax yeeli karna adigu taageerna wax kuma tari kadhid wax yeelana wax ma tari kadhid miskiin dhalay baata ha ka dheerayn guuxaaga dowladnimadana ha ka dhigin haddii alla kuu roo yahay wax dowlad shurusuur ha ka dhigi dowladda shurusuur ka weyn dowladda soonguur ka weyn dowladda ha naga shurusurayn ha ka dhigin meel qabiil looga sheekeeyo qabiil baad ka hadlaysay faroola qabiil ba soo hadal qaaday maanta asaga dur fadhiisaan islaha faroola dur fadhiisaan adeerka waani baan lahaa laakiin waxaaba ii soo baxay ninkaasoo caytamaya oo aan cidna reebanayn oo haddii alla kuu roo yahay faroole iyo qabiilka faroola kasoo jeedo iskaga darsoomeen war faroola waa shaksi sidiisa waa baar laakiin qabiil nacayb baa kugu jira disaster baa ta meel anagu aan wax kugu yeelan garan mayno meel ma jeerta wax kugu yeelan garan mayno meel haddii alla kuu roo carruur lagaaga dhalay garan mayno meel lagugu uureeye garan mayno adeer istos weliga iyo anaga gaaljaal iyo anagu geeliygu malma wadaaqaan xaggee isku aran maxay tahay nacaybka noocaas maxay tahay anagu gaaljacel waa maqlaa weligay qofka jecel xataa ma arag adaa igu horreeyay koonfurna meel aan ka shaakarsan ma jiro maxay tahay nacaybka noocaas maxaan kuu dhin habeen alla keena qof haddii alla kuu royay reerkaas hadduu hadla kala laado qabiil markastana qabiil kama saarnaa hadalkaagu markasta qabiil kama saarnaa puntland baan weerarayaa puntland marayaa xaggee ka dhacaysaa baa ku haysa war awooddaa puntland ku weeraraysid walaal al-shabaab iskaga xore war awoodda haddii alla kuu rooyahay garow ku qabsanaysid walaal dhulkaa ku tag istaag tag haysid xaafadii laga soo doorto tag nin gurigiisa xaaqday haddii alla kuu rooyahay afkaa kusoo taagin hadalkaagu dhan waa nin qaawan oo nin dhal qaba caayaya soomaalidu runta isuma sheegto been bay isu sheegaan kuwa waxay moodayaan qabiil ahaan u hadlay war anigu anoo qaranka u shaqaynaya oo dowladnimada taageersan oo farmaajisa taageersan ba haddana ina gumeed dhalay oo qabiil ahaan ii nacib inaan ka aamuso diintu ma qabto runtaan u sheegaya waa xildhibaan hadalkiisa haddaa xasuusataan puntland baan gamba u xiray xaakiim baan ahaa urur argagixisaaba ku faanaya waa xildhibaan qaran waxaa sheeganaya hadalka waxaan umaynayaa anigu ma hadli kara miya reerkayga marka war beenta ka daama dhigi kara miya adeer waxaan ku leeyahay adeer awoodda iyo bacbacda iyo dhalaarkaa da-aya ee aad garowa la aadaysid adeer gacaliye ku xorey xaafaddaa ka timi ku xore runtaas u sheegaya farmaajo annagaa taageersan taageeri doona dowladnimada taageersan si in qaran la helo taageersan laakiin dowladdu maaha dowlad shurusuur ma
dowlad soongurma dowlad haddii alla ku roon yahay muluc iyo xayrxadama dowlad disaastirnimada qabiil nacaybka iska daa kuma habboona sababtoo ah cunsuriyadda iyo qabiil nacaybka iyo waxay u banaan yihiin qofkii laf weyn ka dhashay u banaan yihiin qofkii laf weyn ka dhashay waxaa sameey laakiin haddii alla ku roon yahay adoo soongura baad intaa qabiil ka hadlaysa istakfirullah kugu waajiba istakfirullah isku halaynaysa dib iskugu laabo runtaan isu sheegaynaa been isu sheegi mayni farmaajo waa madaxweynaheeni dowladda ka dhisan yahay waa dowladeeni waa nagaana taageersan laakiin dowladda ha noga dhigin dowlad shanshuur kuftoa gastaan ha ka dhigin adeer ha ka dhigin faroolo sidiisa wax uga sheeg balakee cashan waa shaksi siyaasiya waa la dhaliili karaa wax kasta laga sheegi karaa laakiin dal iyo deegaan iyo qabiil dhan iyo qowmiyad dhan inaad cay iyo aflagaado soo fariisid annagaa babal figarwa annagaa afkooda ku hadlayna annagaa u soo taagan annagaan u ogolayn shurusuur dhalay ina gumeed ahay inuu afka nagu soo taago aad baan idin salaamaya videoga haddii soo gaaro iga gaarsiiya ninka la yihahdo boonku dhalayoo ninka la yihahdo muxuu ahaa jesu waa idin salaamayaa